Assalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. Qisada filimku waxay ku bilaabmaysaa Young Ho, wiil dhawaan kala soo guuray hooyadii iyo walaashii Janmi, tuulo yar una soo guuray magaalada. Labaduba waxay maalintooda koowaad ku bilaabeen dugsiyo cusub. Young Ho wuxuu gelayaa dugsiga wiilasha oo kaliya ay dhigtaan, Janmina dugsiga gabdhaha oo kaliya ay dhigtaan. Dugsiga Young Ho, Jinsu oo ah arday aamusan ayaa koox uu hogaamiyo Kitay ay u agajuglaynayaan. Markii Jinsu uu diiday inuu lacagta siiyo ayay xoog uga qaateen oo ay garaaceen. Young Ho ayaa markhaati ka ah arrintan laakiin ma fargelin wuuna baxay. Fasalka wuxuu ag fadhiisanayaa Jinsu inta lagu jiro waqtiga bareega. Kitay wuxuu u hanjabay Jinsu maadaama uu maamulka u sheegay, inkastoo Jinsu aanu ahayn kan u sheegay. Young Ho wuxuu Kitay u fiirinayaa si qalafsan, taasoo ka caraysiisay Kitay. Kitay wuxuu uga digay Young Ho inuu ka fogaado haddii uu rabo inuu nabadgalo. Young Ho kaliya wuu dhoola cadaynayaa. Kadib markii Kitay iyo kooxdiisii ay baxeen, Jinsu wuxuu uga digay Young Ho inuu ka taxadaro agagaarka Kitay. Young Ho wuxuu la yaabay inuu maqlo magaca Kitay maadaama uu xusuusanayo saaxiibkii carruurnimada ee dugsigiisii hore. Kadib wuxuu soo gelayaa goobta jimicsiga feerka oo uu go'aansaday inuu bal tijaabiyo. Milkiilaha ayaa markii hore ku canaantay isticmaalka qalabka fasax la'aan, laakiin markuu u sheegay inuu rabo inuu ku soo biiro, milkiilaha ayaa aqbalay inuu u ogolaado inuu si degdeg ah u bilaabo. Habeenkii wuu walwalayaa marka Janmi aysan imaan guriga oo uu wacayaa. Waxay diiday inay ka soo tagto kalaabka karaoke halkaasoo ay la joogto saaxiibkeed. Isagoo xanaaqsan ayuu u soo baxay inuu soo kaxeeyo. Wadada dhexdeeda wuxuu kula kulmay Kitay iyo saaxiibadii. Marka Kitay uu barto magaciisa, wuxuu u aqoonsanayaa saaxiibkiisii carruurnimada. Kitay wuxuu ku casuumay Young Ho cabitaan si uu ula sheekaysto, wuxuuna ka hadlayaa Young Ho aabihii dhintay. Kadib markii ay xusuusteen carruurnimadoodii, Young Ho wuxuu dalbaday inuu baxo. Kadib wuxuu helay Janmi oo la haasaawaysa oo la joogta saaxiibkeed, kadib gurigeeda geynaya. Way xanaaqday waxayna ku eedaysay inuu aad ugu adkeeyo. Maalintii xigtay wuxuu guriga ku martiqaaday Jinsu si uu uga caawiyo shaqada guriga ee xisaabta. Wuxuu ku dhibtoonayaa sharaxaadda Jinsu oo wuu gaajoonayaa. Markaa wuxuu ku martiqaaday Jinsu inuu la casheeyo. Intay wax cunayaan, Jinsu wuxuu weydiiyey sababta Young Ho ay uga go'an tahay inuu barto xisaabta. Wuxuu sharxay sababtoo ah aabihiis wuxuu rabay inuu si adag u dadaalo. Halkaa wixii ka dambeeya waxay noqonayaan saaxiibo dhow. Dhanka kale, Kitay iyo kooxdiisii ayaa ku caweynaya kalaabka karaoke. Markii koox arday ah oo uu hogaaminayo Bidare Jangil ay yimaadeen oo ay dhibaato geysteen, Kitay iyo asxaabtiisa waxaa ka soo haray indho oo kaliya maadaama ay cabsi geliyeen kooxda. Goobta jimicsiga feerka, Young Ho wuxuu ka masayrayaa arday kale kaasoo kaligiis la tababaranaya tababaraha. Iyadoo ay taasi jirto, wuxuu iskii u baranayaa tababarka isagoo ku dayanaya dhaqdhaqaaqyadii uu arkay. Maalintii xigtay, kooxda baandada Kitay ayaa mar kale u agajuglaysay Jinsu. Young Ho wuu soo fargelinayaa oo la dagaalamaya kooxda isagoo si fudud uga adkaanaya. Kitay wuxuu la yaabay xirfadiisa dagaalka, wuxuuna uga digay inuusan soo fargelin kooxda burcadda ah haddii kale uusan weligiis ammaan ku dareemi doonin iskuulka. Kadib markii uu Kitay baxay, arday lagu magacaabo Sang Ho ayaa ku amaanay isaga inuu la dagaalamay burcadda. Kitay aad buu uga xumaaday arrintan isaga iyo kooxdiisii. Mid ka mid ah asxaabtiisa ayaa soo jeedinaya inay ka argoostaan say sharaftooda u soo celiyaan, laakiin wuu ka warwareegayaa isagoo aan rabin inuu u dhaqmo si degdeg ah. Intuu guriga ku sii socdo, Sang Ho wuxuu barayaa Young Ho saaxiibkiis Haksu. Haksu wuxuu aad ula dhacay xirfadaha fanka dagaalka ee Young Ho iyo geesinimadiisa. Saddexdooduba waxay aadayaan goob cunto lagu iibiyo, halkaasoo Sang Ho iyo Haksu ay muujinayaan nacaybka ay u qabaan Kitay juglaynta awgeed. Qadada kadib, Young Ho wuxuu geynayaa Sang Ho iyo Haksu jimka. Wuxuu qirtay inuu ka cabsanayo Kitay waayihiisii hore ee cagajuglaynta darteed. Waxay u xaqiijinayaan inuu xoog badan yahay oo uu ka adkaan karo Kitay. Jangil oo ah arday sare ayaa dhowaan garaacay burcadda Kitay maadaama aysan siin lacag ku filan. Kitay wuxuu sharxayaa qof howlahooda u sheegay guddiga dugsiga, wuxuuna kula talinayaa inuu ka taxadaro, laakiin Jangil dan kama laha. Guriga, Young Ho wuxuu booqday dukaanka hooyadii oo wuxuu arkay iyadoo macaamiisheedu ay dhibayaan. Inkastoo uu doonayay inuu la dagaalamo, haddana wuxuu xusuustaa balankii uu hooyadii ka qaaday oo uu go'aan ku gaaray inuu iska daayo. Taa beddelkeeda wuxuu ku ciilbaxayaa tababarka goobta jimicsiga feerka isagoo xanaaqsan. Kadib wuxuu arkay Kitay saaxiibtiis Haijin oo uu hotel hortii ku dhibaataynayo qof sare. Wuxuu doortay inaanu soo fargelin oo uu iska tegayaa. Haijin ayaa markii dambe ka daba timid iyadoo weydiinaysa sababta uu u caawin waayey, laakiin wuu iska aamusay oo socodkiisii ayuu iska sii watay. Soo laabashadiisa wuxuu arkay wiil ku qaylinaya walaashii Janmi. Wuxuu feer ku dhuftay wiilka,
balse waxaa canaanatay walaashii maadaama uu saaxiibkeed dhib u geystay. dhanka kale kooxda Kiitai ayaa sii waday cagajuglaynta iyagoo markan ku qasbaya dhibanaha inuu lacag ka soo xado hooyadii suu u siiyo. Sang-hoo iyo Hak-soo waxay ku casuumeen Young-hoo inuu u gooyo fasalka oo uu sigaarka kula cabo daaradda dugsiga. intay sigaarka cabayaan, Young-hoo wuxuu wax ka weydiinayaa Jang oo ka socda dugsiga sare ee Yongjin. Sang-hoo wuxuu sharxayaa in Jang lagu yaqaano inuu yahay qof cagajuglayn iyo rabshado badan. Young-hoo wuxuu daaha ka qaaday in Jang uu yahay walaashii saaxiibkeed iyo inuu habeen ka hor la dagaalamay isaga maadaama uu dhaawacay walaashiis. Sang-hoo iyo Hak-soo waxay la dhaceen geesinimadiisa. dugsiga ka bacdi, Hae-jin waxay ka codsatay Young-hoo inuu gurigeeda u raaco oo uu la kulmo saaxiibkeed, laakiin isagu ma xiisaynayo. waxay iska soo horbaxeen Kiitai iyo baandadiisa. Kiitai wuxuu Hae-jin ku dhunkaday Young-hoo hortiisa suu ugu muujiyo inuu yahay saaxiibkeed. Young-hoo ma danaynayo wuuna iska sii soconayaa. maalintii xigtay Kiitai wuxuu lacagta la soo xaday siiyey Jang-il kaasoo uga digaya inuu ka taxadaro sarkaal sare oo lagu magacaabo Sang-ki. isagoo ku sii socda gurigooda, Young-hoo waxaa soo weeraray arday dhigta dugsiga sare ee Yongjin iyagoo ka aargoosanaya dagaalkii uu hore ula galay Jang. maadaama laga tiro batay waa la garaacay ilaa Sang-hoo iyo Hak-soo ay yimaadaan say u caawiyaan oo ay ku guulaysteen dagaalka. tan iyo dagaalka, Young-hoo wuxuu si xoogan ugu tababaranayay feerka suu u sii xoogaysto. maalin maalmaha ka mid ah dugsiga kadib, isaga iyo saaxiibadiis waxay cunto fudud ka iibsadeen meel dukaan ah. Kiitai iyo kooxdiisa ayaa ka hor yimid iyaga, iyadoo Kiitai uu muujiyey sida uu uga xun yahay geesinimada Young-hoo. Sang-hoo wuxuu isku dayay inuu u istaago isaga, laakiin waxaa lagu dhuftay qasacad cabitaan. suu uga fogaado isku dhac kale, Young-hoo wuxuu u sheegayaa asxaabtiisa inay baxaan. isaga iyo asxaabtiisa waxay ka wada hadlayaan sidii loo maarayn lahaa Kiitai. Hak-soo wuxuu ku booriyey inuu weeraro, laakiin wuu iska aamusay wuuna macsalaameeyey. intii uu gurigooda ku sii socday ayuu mar kale la kulmay Hae-jin taasoo ku marti qaaday casho. cashada kadib way dhunkatay oo waxay ku tiri waan kugu haystaa, taasoo isaga ka yaabisay. markuu ku soo noqday dukaanka hooyadii wuxuu arkay iyadoo mar kale la dhibayo. markan xanaaqiisa wuu xajin kari waayey oo si xoog leh ayuu u garaacay kii dhibayey hooyadii markuu baxay kadib. maalintii xigtay, Sang-hoo iyo Hak-soo waxay si taxadar la'aan ah dagaal ku balansadeen Kiitai iyo burcadiisa. ka hor intuusan dagaalku bilaaban, Kiitai waxaa soo wacday Hae-jin una sheegtay inay nacday. wuu xanaaqay oo xanaaqiisa ayuu korkooda kula duldhacay oo aad buu u dhaawacay. Young-hoo wuxuu ogaaday waxa dhacay, wuxuuna kaloo ogaaday in Hak-soo uu u malaynayo Young-hoo inuu ka baqayo Kiitai maadaama uusan dib ula dagaalamin. meel kale, baandada Kiitai ayaa mar kale weerartay Jin-soo isagoo isbitaalka la dhigay kadib dhaawacyo halis ah. dhammaantood waxay soo booqanayaan Jin-soo oo ku jira isbitaalka. inkastoo uu aad u dhaawacan yahay, Jin-soo ayaa weli ah mid wanaagsan. xanaaqa Young-hoo ee dhaqanka Kiitai ayaa sii kordhaya. Sang-hoo ayaa ku martiqaaday inuu ku soo biiro iyaga suu uga aargoosto Kiitai. isaga iyo asxaabtiisa waxay isu diyaarinayaan inay kula dagaalamaan Kiitai iyo burcadda goobta ay ku kulmaan, waxayna isdareen fooda taasoo keentay dagaal aad u qaraar. dhammaadkii, Young-hoo iyo saaxiibadii way ka adkaadeen. intaas kadib, kooxda Sang-ki ayaa bilaabay ugaarsiga Young-hoo iyo asxaabtiisa, laakiin iyagu hadda ma cabsanayaan, waxayna diyaar u yihiin inay wajahaan caqabad kasta. Jang-il oo aad uga carooday guuldaradii Kiitai ayaa raggiisa u diray inay fasalka ka raadiyaan Young-hoo, laakiin mid ka mid ah ardaydii ay isku fasalka ahaayeen oo u sheegayaa ma jiro. wuxuu la nasanayaa Sang-hoo iyo Hak-soo, markaasoo Jin-soo uu uga digay inuu raadinayo Jang-il. way baxayaan say uga hortagaan Jang-il, laakiin waxaa u yeeray macalinkooda kaasoo uga digay inaysan mar dambe ku celin dhaqankooda ama ay halis u geli doonaan in la cayriyo. inkastoo laga adkaaday Kiitai, haddana cagajuglayntu way sii socotaa. Jang-il oo lagu xamanayay in la xirayo ayaa ku wareejiyey hogaanka Seong-tae kaasoo ku ciqaabaya kooxda Kiitai guuldaradii soo gaartay, wuxuuna ka xanaaqay inaysan imaanin iskuulka. Seong-tae wuxuu ku martiqaaday Young-hoo saqafka sare waqtiga nasashada, wuxuuna siinayaa boos ka mid ah kooxdiisa. wuu diiday, taasoo keentay xiisad hor leh. isaga iyo asxaabtiisa ayaa maqaayadda dugsiga uga wada hadlaya sidii ay u maarayn lahaayeen dalabka, waxayna go'aansadeen inaysan ku biirin burcadiisa. dugsiga kadib, Young-hoo wuxuu ku tababaranayaa goobta jimicsiga feerka suu u yareeyo walbahaarka. intuu gurigooda ku sii socday ayuu iska indhatiray gabar dugsiyeed oo u muujisay xiisaha. goobta bilyaardiga, Jang-hoo wuxuu la dagaalamayaa ardayda dugsiga sare. burcadda Seong-tae oo arkay wiilashooda oo uu garaacay Jang-hoo ayaa weeraray iyagoo argoosi ah. arday cusub, Dae-jaan, ayaa ku dhacay Hak-soo, laakiin ma bixin wax raaligelin ah, taasoo ka caraysiisay Hak-soo. Young-hoo ayaa soo dhexgalay suu uga hortago dagaalka. habeenada ka mid ah, Min-jaan ayaa nin khiyaamaysay. intuu eryanayeyna, Young-hoo ayaa soo dhexgalay suu u difaaco. Min-jaan way u mahadcelinaysaa, waxayna u sheegtay inuu aad u taxadaro. maalintii xigtay, Min-jaan waxay u sheegtay asxaabteeda wax ku saabsan Young-hoo, waxayna
waxayna weydiisatay inay xiriir la yeelato. Young-Ho oo aan hubin sida looga falceliyo ayaa ogolaaday inuu noqdo saaxiibkeed. Way haasaawayaan, Janmi-na way ogaatay arrintan iyadoo ku jeesjeesaysa xiriirkiisii ugu horeeyay. Maalintii xigtay baandada Seng-Ho waxay lacag ka dalbadeen Jeong-Ho. Dijang ayaa yimid oo isku dayay inuu joojiyo, laakiin kooxda Seong-tae ayaa weerartay isaga. Si la yaab leh, Dijang waaba dagaalyahan xirfad leh oo ka adkaaday wiilasha. Seong-tae wuu xanaaqsan yahay wuxuuna qorsheynayaa inuu argoosto. Young-Ho iyo asxaabtiisu waxay ku wada sugan yihiin goob lagu casheeyo, markaasoo Seng-Ho uu soo jeedinayo in la sameeyo naadi ka hortaga cagajuglaynta si loo caawiyo ardayda taagta daran. Young-Ho wuu aqbalay fikradda. Seong-tae wuxuu aadayaa Jeong-Ho si uu u ogaado cidda caawisay Dijang. Markuu Dijang yimaado, Seong-tae wuxuu aqoonsaday inuu yahay saaxiib hore kaasoo ka mid ahaan jiray kooxdiisa. Waxay isku dhaceen kadib dhacdo halkaasoo Dijang looga tegay oo la xiray intii uu socday dagaal u dhexeeya burcadda. Dugsiga kadib Young-Ho iyo Jin-Soo waxay ku tababaranayaan feerka. Dijang ayaa ku biiray iyaga. Kooxda burcadda ah ee Seong-tae-na waxay ogaanayaan saaxiibtinimadooda sii kordhaysa iyagoo ka baqaya inay noqdaan laba qof oo awood leh. Iyadoo Young-Ho iyo asxaabtiisu ay ku sugan yihiin baarka karaoke oo ay la joogaan Min-jang iyo Dijang. Dijang goor hore ayuu baxayaa. Seng-Ho iyo asxaabtiisa waxay arkeen kooxda Seong-tae ee daba socota Dijang, waxayna si qarsoodi ah u raacayaan iyaga. Seong-tae wuxuu weeraray Dijang kaasoo marka hore la dagaalamaya, laakiin aad ayaa loo garaacay markii burcaddu ay mar qura soo weerareen. Seng-Ho iyo asxaabtiisa ayaa u yimid si ay u caawiyaan, laakiin waa laga tiro badan yahay oo dagaalka waa looga adkaaday. Jin-Soo wuu baxsaday oo wargeliyey Young-Ho kaasoo u degdegay inuu caawiyo. Wuxuu ka adkaanayaa burcadda, taasoo isaga iyo asxaabtiisa ka dhigaysa hogaamiyeyaasha cusub ee dugsigooda. Waxay la wareegeen saqafka sare kaasoo ahaan jiray booska Seong-tae. Ugu dambeyntii Seong-tae waxaa canaantay mas'uul sare isagoo daaha ka qaaday inuusan ahayn hogaamiyaha ugu sareeya ee burcadda. Qof ka awood badan ayaana kormeeraya. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.